كلماني كلمتها كلماني حكبيحن كلماني كتنويه كلماني هوش الواقعي كلماني كالنتادي كلماني كمينتاهي كلماني كالا يوقبو كلماني xirfadoodu waa afmaal balse maanta waxay u soo baxeen kasoo dhalaalidda kaalintooda muwaadininimo ee dib loogu dhisayo ama lagu dayactirayo xarunta murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka waana qayb ka mid ah ololaha isxilqaan ee uu madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay horaantii Oktoobar ee sanadkan shaqaalaha shabakada warbaahinta kulmiye ayaa maanta u hagarbaxay dayactirka tiyaatarka qaranka oo hooy wacyigelin iyo madadaalaba u noqon doona Soomaalida maanta shaqaalaha KNN oo aanan u kala harin rag iyo dumar ayaa qaatay qalabka dayactirka si ay hawsha socota dhankooda kaga qabtaan dhabti kaalin muuqata ayayna ka qaateen sida ay ka dhawaajiyeen hormuudka howlwadeennada ololaha isxilqaan Maryama Aadam Amiin agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha bini'aadanimada ahna hormuudka howlwadeennada ololahan isxilqaan ayaa tiri waa mahadsantiin kulmiye team oo soo kala harin maanta gabdhahoodii wiilashoodii iyo odayaashoodii iyo bahdi kalamaan oo dhan aad iyo aad mahadsantiin jadwalkii hay'adaha dawladda ayaa gabagaba naga ah waxa noo bilaabanaya bulshada rayidka oo xiiso u qabto hawshan inay aad u qabato nasiib waxa u yeelateen qoladii u soo horeysay ee ayadan jadwal ku jirin iridda naga soo gashay inaad tihiin taasna aad ugu mahadsantiin kulmiye dadka jadwalku qor la way ku jirtaa laakiin waxa nasiiba in sida isu xilqaanteen ee aad idinko habeesan hada qof ku yimid oo hawlaan qabanaa ku yiri si awlaha shidba ma taqaanid farxad iyo hambalyo ma ogiyo aad idinku hambalyeena aad iyo aad u mahadsantiin idinkii gudoomiyihiina hawsha meeshan ka dhacda maanta waa in caawa kalamaan ka maqlo insha Allah taala agaasimaha shabakada warbaahinta kulmiye Maxamed Axmed Tuuryare ayaa waxa uu sheegay in markay arkeen madaxdii dawladda oo ka qayb qaadanaysa dhismaha xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta ay kulmiye ahaan go'aansadeen inay qaataan kaalintooda dhismaha ololaha isxilqaan waxa uu intaas raaciyay in hawshan ay bilaabeen idaacadda kulmiye ahaan tusaale buuxda ay u tahay bulshada rayidka loona baahan yahay inay ku daydaan gaarka loo leeyahay kaalin leeyihiin in ururada bulshada dhalinyarada ay kaalin leeyihiin arintaas oo dhan si aan u muujino maanta waxaan u sameynay in shaqaalaha raadiyo kulmiye oo aan ahayn shaqaale u shaqeeya dawladda laakiin shaqaale u shaqeeya hay'ad gaar loo leeyahay ay maanta shaqadii isxilqaan ka qayb qaateen dhismihii wadanka ay ka qayb qaateen aan mataqaanaa ka shaqeynay sidii aan wadankeena ileen waxa laga yaabaa in dad badan oo naga mid yahay ay dumintiisa ka qayb qaateen dhismihiisana maanta ka qayb qaadano farxaday noo tahay inaan maanta bilowno wajiga shacbiga ah ee ololaha isxilqaan maadaama wajiga shaqaalaha dawladdu uu gabagaba marayo waxaan rajaynayaa inay nagu dayan doonaan qayb badan oo ka mid ah shaqaalaha dawladda amaba shaqaalaha hay'adaha gaarka loo leeyahay u shaqeeya barnaamijkan ay qaybtooda ka qaadan doonaan sidoo kale waxaan aad u rajaynaynaa in ololaha isxilqaan uu noqdo mid dhammaan ummadda Soomaaliyeed wada gaara oo qof waliba muruqiisa wadankiisa u geliyo waa maashaday Cabdullah waxaa xusid mudan jilayaasha caan baxay ee kalamaan oo ay baahiso shabakada warbaahinta kulmiye in qudhoodu ay soo bandhigeen suugaan ay ku dhiirigelinayaan shaqaalaha maanta hawsha wada si aanay uga caajisin hawsha adag oo ay dib ugu dhisayaan xarunta tiyaatarka dhanka kale maareeyaha xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa u mahadceliyay madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta kulmiye oo iyagu maanta ka qayb qaatay ololaha isxilqaan ee dib loogu dayactirayo xarunta golaha murtida wacyigelinta tiyaatarka qaranka waxa uu maareeyuhu dalbaday in cid walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu ka qayb qaato dhismaha xarumaha danta guud waxaan maanta ku soo dhaweynay golaha murtida iyo wacyigelinta بعد راديو كلمية واسكو دوبان oo aan kala harin oo macal kalamaan ay la socdaan waxay qayb ka qaadanayeen ololihii uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya ee isxilqaan ee ka bilowday golaha murtida iyo wacyigelinta waa uga mahad celinaynaa waxaan kaloo hadii alla ku kula taliyeynaa hay'adaha madaxa bannaan
haddii alla ku aan dawliga ahayn inay kaalintooda qaataan. dalku waa naga dhaxeeyaa, cid walbana waxay ku leedahay haddii alla ku rooyaa kaalin, marka inay iyaguna waajibkooda gutaan oo ay kaalintooda qaataan oo aan wasaaradaha kaliya haddii alla ku rooyahay aan lagu hadlaynin ayaan haddii alla ayagana kula talinayaa. qof kasta oo Soomaaliya oo damiir leh waxa waajib ku ah inuu inta isxilqaamo oo wadankiisa gacantiisa ku dhiso. sidaas ayaan kula talinayaa. waxaan kaloo ayagana aan tala u soo jeedinaynaa dadkii duminta dalka ka qayb qaatay deynta inay iska bixiyaan oo maantana ay dhismaha ka qayb qaataan. kuwaasna sidaasaan kula talinaynaa. ummadii dadaashaa waxay doonto ma weydo. waa mahadsantihiin. qaar ka mid ah shaqaalaha idaacadda kulmiye oo iyagu maanta ku hoolanaa ololaha isxilqaan ee dib loogu dayactirayo xarunta murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka ayaa waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin ka qayb qaadashada dhismaha golaha murtida. xawaa cabdulla cubayd oo ka tirsan howlwadeennadii maanta hoosha hayay ayaa tiri waan ku faraxsanahay maanta anagu ah tiimkeena inaan soo booqanno xarunta tiyaatarka qaranka isla markaana aan ka qayb qaadano ololaha isxilqaan. runtii wax weyn ay tahay keenana wax weyn ay u tahay in barnaamijkan ay ka qayb qaataan sababtoo ah waa markii ugu horeysay aan ka qayb galno anagoo tiimkeena ah ololo noocan oo kale oo isxilqaan ah. marka waxaa fiican in qof kasta iyo bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada inay sidaan oo kale uga qayb qaataan. hadhow caruurtaada ugu sheekeynaysaa, dadka kaa dambeeya ugu sheekeynaysaa wixii aad qabatay, adigana beri way ku anfacaysaa in dalkaaga hal dhagax baa ka qaadee inaad ku kordhiso. marka anagoo tiimkeenan ah oo ku faraxsanaa maanta in ololahan isxilqaan aan ka qayb galno wax weynayna noo tahay. runtii bulshadana waxaan ku baraarujinayaa in sidaan oo kale ay uga qayb qaataan oo ay yimaadaan isla markaana dalkooda ay wax ku kordhiyaan. marka hadal badan ma yaallo, dadkii igu horeeyay ayaa hadlay. keenan oo ku faraxsantaa maanta in barnaamijkan ay ka qayb galaan. KNN ayaa tusaale buuxda u ah bulshada dhageysata marka loo eego kaalinteeda baraarujin ee wadaniyadda, waxwada qabsiga iyo dib u dhiska qarannimadeena marka la joogo maqal baahiyaha 80 iyo 80 megahertz. maanta oo ay ku dareen ficil waa tusaale taariikhdana xusi doonta. waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso sanadihii 1965 ilaa 67 mar kale ayaa sanadka 2018 waxaa dib loogu dhisayaa ololaha isxilqaan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya horaantii bishii 10aad uu ka dhex dhigay xaruntan murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka Soomaaliya. maanta waa kaalintii kulmiye iyo kalamaan. Cabdullaahi Xuseen Canshuur, KNN, Muqdisho.